haddii wax yar oo fudud lagu sameeyo ku mahadceli adigoo qofka dareensiinaya tusaya inaad ku faraxsan tahay wanaaga iyo waxa uu ku sameeyay nabi sallallahu wuxuu inoo tilmaamay in qofkii wanaag inoo sameeya inaan ku abaalgudno haddii aanan haynin wax aan ku abaalgudno in aan u duceyno walaalayaal erayga waad mahadsan tahay ma ogtihiin inay tahay eray macaan badan aad ku kasban kartid qofka qalbigiisa aad ku soo jiidan kartid sidoo kale qofka bilaadanka uu jecel yahay in loo mahad celiyo laguna amaano waxa uu sameeyay haddii maanta adiga dadka aad ugu mahad celisid waxyaabaha ay ku sameeyeen adigana berito waa lagu mahad celinayaa sidoo kale qofkii aanan dadka u mahad celin ilaahay subhanahu wa ta'ala uma mahad celiyo mahad celi qof walba wanaag ku sameeyay commentiga hadda ku soo qof aad ugu mahad celinaysid wax uu ku sameeyay